السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسودو هذا جنال كهناشي. محمد المرسي مدحوينه شعب كمصر محمد المرسي عيسى العيادي وحود شي 8 أغسطس سنة 1951 محمد المرسي waxay muslimiintu u yaqaaneen walaalka muslimiinta reer Masarna waxay ula baxeen Mujaahid Mursi. Maxamed Mursi wuxuu ahaa aabaha shan caruura wuxuu ifka kaga tagay Allah u naxariistay 4 wiil iyo gabar. xaaskiisa waxa lagu magacaabi jiray Najila Ali Maxamuud. Maxamed Al-Mursi cilmiga darajadiisa wuxuu ka gaaray PhD wuxuu ku takhasusay culumta diinta Islaamka, dhaqaalaha iyo caafimaadka. sanadkii 2000 ayuu noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Masar isagoo matalayay xisbiga Ikhwaanul Muslimiin. wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay oo si cadaalad ah loo doorto ee dalka Masar sanadkii 2012. sanad markii uu xilka hayay military uu hogaaminayo General Abdi Fattah al-Sisi ayaa xukunka ka xayoobiyay Maxamed Al-Mursi iyagoo dalka ku qabsaday Afgambi. waxayna Maxamed Al-Mursi u taxaabeen xabsi sanadii 2015 ayay ku xukumeen dil toogasho. ugu dambeyntii madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Al-Mursi ayaa ku geeriyooday gudaha maxkamadda 17 Juun 2019 Isniin oo ku beegneed shalayto.